maantay halkan ku soo dhaweynay caasimada dowladda Galmudug ergeyga wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya israajiga cusub bacda soo dhaweyn iyo isbarasho kadib waxaanu ka wada hadalnay arrimo muhiim ahaa oo horey u socday oo aan wada wadnay xafiiska ama wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay waa kamid tahay heshiiskii madasha wadatashiga qaranka ay horey u gaartay ama heshiiskii siyaasadeed iyo sida ay arrimihiisa si habsamiya ugu socon lahaayeen ama loo dardargelin lahaa iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka guud ahaan dalka oo heshiiskaba qayb weyn ka ahaa iyo kuwii horey u socday intaba sidoo kale waxaan ka wada hadalnay oo runtii aada iyo aad muhiim u ahaa xasilinta oo deegaanada laga xoreeyey cadowga argagixisada ah iyo guud ahaan inta ay ka jirto baahidaas iyada ah xasilinta ama stabilizationka aan aada uga wada hadalnay oo iyadana aan meel fiican ama suntii aan ka gaarnay waxyaaba badan aan ka sameynay sidoo kale ugu dambeyn dib u xoreynta oo dalka o dhanna ka socota haddana cadowga argagixisada dhamaystirkooda aan rajeynayno waktiyada soo socda in ilaahay idinkii ay guud ahaan dalkana ka socoto gaar ahaana Galmudug ay runtii ka tahay hawl hadda meel fiican mareysa aada iyo aad ayaan qodobada aan ka wada hadalnay oo dhan ay waxaan si buuxda runtii aan iskagana afgaranay shaqadooda iyo dardargelintooda iyo hirgelinta arrimahaas oo dhanna meel fiican isula dhignay mar kale waxaan runtii ku faraxsannahay SRSG cusub iyo hawsha aan wada bilownay iyo shaqadii hore u socotay intaba waxaan leenahay mar kale soo dhawow Mr. Ambassador kusoo dhawow Galmudug kusoo dhawow wada shaqeyn wanaagsan iyo hawlaha oo aan rajeynayno insha Allah inay si fiican ama si guul ay nagu dhamaadaan